ayo tobanka qof ee ugu sareeya cashuur bixinta dalka UK yaa loo magacaabay kaalinta koobaad. warkaas iyo warar kale badan waxaad kala socotaa la soco radio. warbixin iyo daraasad lagu sameeyay ganacsatada iyo cashuur bixiyaasha dalka UK ayaa lagu soo bandhigay tobanka qof ee ugu sareeya cashuur bixinta dalka UK. Stephen Robin iyo qoyskiisa ayaa noqday ganacsatada ugu sareysa dhanka cashuur bixinta dalka UK, iyagoo sanadkii bixiya hanti gaaraya 181.6 milyan, waana hantilaha iskale JD Sports and Bentland Group. kaalinta labaad waxaa galay Dennis, John iyo Peter, saddexdan qof oo ku midoobay shirkadda Company P365 oo sanadkii iyagoo bixiya 156 milyan oo gani. kaalinta saddexaad waxaa soo galay Sir James Tyson iyo qoyskiisa oo iyaguna bixiya 127.8 milyan oo gani, waana hantilaha iskale shirkadda Vacuum Cleaner and Household Appliance Company. kaalinta afraad waxaa soo galay Bruno Schroeder iyo qoyskiisa oo iyaguna bixiya 114.3 milyan oo gani, waana hantilaha iskale Investment Management Company. sidoo kale kaalinta shanaad waxaa soo galay Sir Jim Ratcliffe oo isaguna bixiya sanadkii 110.5 milyan oo gani, waana hantilaha iskale Anias Chemical Company. kaalinta lixaad waxaa soo galay The Western Family oo iyaguna bixiya 76 milyan oo gani, waana hantilayaasha iskale ganacsi gaaraya 6 company iyo brando kala duwan. kaalinta toddobaad waxaa soo galay Sir Chris Horn oo isaguna bixiya 64.8 milyan oo gani, waana maamulaha TCI Hedge Fund. kaalinta sideedaad waxaa soo galay Sir Peter Wood oo isaguna bixiya hanti gaaraya 53.7 milyan oo gani, waana aasaasaha iyo mulkiilaha iskale shirkadda Assure Insurance Company. kaalinta sagaalaad waxaa soo galay James Benham oo isaguna bixiya 52.2 milyan oo gani, waana hantilaha iskale Amigo Loans and Richmond Group Moneylanders. sidoo kale kaalinta tobnaad waxaa soo galay Baroness Howard Weldon iyo qoyskiisa oo iyaguna bixiya 44.1 milyan oo gani sanadkii. waa tobanka qof ee ugu cashuur bixinta badan dalka UK, waana ganacsatada ku guuleysatay tobanka kaalmood ee ugu sareeya dhanka cashuur bixinta dalka UK. warkii maanta intaas uu nagu dhan yahay, intaynu dib u kulmi doono tan iyo kulanteeda dambe waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo. la soco radio, ugu hagaag wararkii ugu dambeeyay.